بسم الله ربي يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مدن اليوم مروين كسو دوادا كورسداني Odoo for accounting software. ma tahay maamule u baahan in ganacsigiisa ama dhaqdhaqaaqa xisaabaadkiisa uu iska xaqiijiyo, ama ma tahay qof ganacsade ah oo weli isticmaalaya bookkeeping, buug iyo qalin ee warqadihiisa iyo deemihiisa ay ku qoran yihiin, oo marka la gaaro sanadka xisaab xirka goobtaasi ganacsi halkaasi ay uga lumaan $10 oo lacagtiisa ah, sababtoo ah marka uu waayo kadib buuggii lacagtaasi ay u qornayd ama uu ka lumo ama uu ka gubto. Ama ma tahay arday danaynaya oo soo bartay qeybaha iyo xisaabaadka raba in laga caawiyo ama laga kabo, ama ma tahay qof soo bartay barnaamijka xisaabaadka iyo waxyaaba la midka ah oo u baahan inuu ku shaqo tago isticmaalka barnaamijyada xisaabaadka loo isticmaalo oo ay ugu caansan waqtigan la joogo. haddaba haddii ay tahay jawaabtaadu haa, waxaan ku haynaa koorsadaasi oo lagu magacaabo Odoo, iyo waxay tahay insha allahu tacaala ayaan rabaa inaan muuqaalkani kooban aan idinkula wadaago. Marka ugu horeysa, Odoo waa software loo isticmaalo barnaamijka ama barnaamij xisaabeedka shirkadaha noocyadooda kala duwan loo isticmaalo weeyaan. Ama si kale haddii aan u dhigno, Odoo waa ERP system waaye marka ka mid ah systemyada loo isticmaalo xisaabaadka. barnaamijka lagu magacaabo Odoo inta badan Soomaalideena isticmaalkiisa aad ay ugu yar tahay, balse adduunka marka loo barbar dhigo Odoo wuxuu ka mid yahay barnaamijyada ERP systemka ah loo isticmaalo ganacsiyada noocyadooda kala duwan, haddii ay yihiin marka waxbarasho education, haddii ay tahay marka ganacsi marka online ah, e-commerce ah, sidoo kale hadduu yahay education, hadduu yahay hospitals, hadduu yahay pharmacy, dhammaan noocyada kala duwan waxaa loo isticmaalaa marka ganacsiyada kala duwan ayaa loo isticmaalaa. sababta oo ah waxa uu yahayba waa sida halkani kaaga muuqda marka halkudhigoodii waa all your business in one platform. dhammaan ganacsiyadaadii ama ganacsigaagii hal application oo keliya u isticmaalaya lagu leeyahay. marka baahidii aad u qabtay dhammaan ganacsigaaga waxyaabaha la xiriira softwareada la xiriira haddii aad u baahanto, waxaad ka helaysaa hal application ayaad ka helaysaa oo ah Odoo dhexdiisa ayaad ka helaysaa. sidoo kale halkan waxaad u jeedaa in lagu leeyahay simple waaye, efficient waaye, and affordable waaye. waa mid fudud weeyaan marka isticmaalkiisa, sidoo kalena waa efficient oo waqtiga ayuu marka ku beeqaaminaya. marka waqti yar ayaa howl badan aad ku qaban kartaa haddii aad aqoontiisa aad leedahay marka isticmaalkiisa barnaamijkaasi. sidoo kalena waa affordable oo waa mid la awoodi karo weeyaan marka qiimihiisu. saad u jeediin halkan waxaad u jeediin in lagu leeyahay $7.25 per month for all apps. dhammaan apps-ka halkani kaaga muuqda iyo kuwa kale halkani ku qarsoon marka la isku daro waxaad ku heli kartaa lagu leeyahay $7.25 aad ku heli kartaa. marka waa affordable weeyaan marka lagu leeyahay waa sidaasi weeyaan. marka aad ayuu marka raqiis u yahay kiradiisa ama subscription-kiisa marka loo barbar dhigo sheyaalka kale xisaabaadka loo isticmaalo sida QuickBook online-ka ama midka desktop-ka ah, haddii uu yahay marka kuwa lacagaha ah oo san ahayn marka ku qaab kale adigu aad ku isticmaasho. marka midaasina waan arki doonaa casharada soo socda ayaan ku arki doonaa iyagoo barbardhig lagu sameynayo. haddaba koorsadaan insha allahu tacaala waxaan ku baran doonaa barnaamijkaasi marka oo Odoo lagu magacaabo. ilaa iyo 12 milyan oo users ah ayaa isticmaala daafaha dunida jooga. marka koorsadani waxyaaba aan ku baran doono waxaa ka mid ah sida loo isticmaalo Odoogani ayaan ku baran doonaa insha allahu tacaala si step by step ah. sidoo kale waxyaaba aan ku baran doono oo ugu muhiimsan waxaa ka mid ah marka applicationka lagu magacaabo purchase-ka, applicationka lagu magacaabo inventory-ga, applicationka lagu magacaabo sales-ka, iyo applications fara badan sida accounting-ka ayaan isticmaali doonaa. marka waxaan ku baran doonaa company dhammaystiran bilow ilaa iyo dhammaad ayaan ku baran doonaa sida loo set up gareeyo, sida loo sameeyo purchase-ka noocyadiisa kala duwan ama transactions, daily transactions-ka ayaan ku baran doonaa. xisaabaadka sida marka vendors lacag aan wax uga iibsan karno, sida amaah aan wax uga soo iibsan karno, sida macaamiisheena deen aan wax uga jari karno invoice, sida cash aan wax uga iibin karno. dhammaan waxyaabahaas iyo waxyaaba ka badan ayaan insha allahu tacaala aan ku baran doonaa koorsadaani inta ay socoto.
haddaba marka koorsadani waxyaaba aad ku baran doonto halkaasi ama kilibkan yar kuma soo koobi doono insha allahu tacaala waxyaaba fara badan ayaan ku baran doonaa insha allahu tacaala haddii ay tahay inventorygii, haddii ay tahay point of sellkii sida loo sameeyo ama la isku xiro point of sellkeena iyo odugeena anagoo isticmaalayna sida la isku xiro ayaan ku baran doonaa insha allahu tacaala. sidoo kale waxaad ku baran doontaa ilaa iyo 20 iyo dhowr cashar ayaad ku baran doontaa, 26 cashar ayaad ku baran doontaa koorsadani oo marka necessary ah marka daily transactionska ilaa aan ka samaynayno marka meesha ugu dambeysa closing date aan ka samaynayno oo xisaab xirka aan ka samayn doono insha allahu tacaala ayaad ku baran doontaa koorsadani. marka haddii aad danaynayso koorsadani odu lagu magacaabo insha allahu tacaala waxaan ku leeyahay waa koorsadaadii. haddii aad danaynayso marka inaad ka faa'iidaysato koorsadani ama aad uga faa'iidayso ganacsigaaga iyo horumarkaagii, waxaan ku leeyahay kusoo bir maanta bilow xirfad cusub. waxaan idin leeyahay marka soo dhawaada. wassalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu.